taagan yahay oo nimcada oo barwaaqada ah inuu ilaahay maartay meeshiisa hore noogu sii wado inaan dib u noqono ilaahay kama rajaynayna insha Allah marka maxaa xildhibaanadan waxaan leeyahay maartay shacab weynaha dhammaan ilaahay hana waafajiyo wixii khayr ah oo wadankan maartay khayr iyo barwaaqo ah insha Allah laba doorasho joogtay la soo dhaafay tan hadda waa joogtay maxaa isbedelaha oo la sidii kara way ku kala duwan yihiin tii hore iyo tan wallahi mar walba yani sanad ka dambeeyo yani tiknoolajiyada iyo horumarka hore u sii soconaya tii horena waa taagnaa tii ka sii horeysay sidoo kale 2012 waa joogay marka yani midba ka dambayso yani way ka sii horumarsan tahay waxaan rajaynaynaa tan midda ku sii xigto ilaa aad one vote insha Allah oo halkan la isugu soo noqoninba ayaan ma maasan tahay wasiir sida qurux badan ana wala qayb gashay tabinta tooska ah daawadayaal goordhow ayay bilaaban doontaa doorashada oo inta badan xildhibaanadu ay soo dhameystireen waxa la sugi doonaa guddoonka baarlamaanka oo iyagu wali aanan soo galin balse soo dhow musharaxiinta ayaa intooda badan holka ku sugan kuwaasoo dhammaantood hadda soo gaaray holka qaarkoodna la sugi doono mar dhow waxaa xusid mudan daawadayaal in doorashadan ay tartamayaan ilaa in ka badan 30 musharax kuwaasoo dhammaantood doonaya inay codka kalsoonida ka helaan xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyada oo tartamayaasha hadda qaarkood ay soo gaareen holka kuwa kalena la sugayo guddiga doorashada ayaa ku sugan kuwaasoo si habsami leh u wada qabanqaabadii u dambeysay doorashada ciidamada ammaanka ayaa sugaya amniga goobta doorashada iyo guud ahaan wadooyinka soo gala halkan oo ateenada afasiyooni iyaga oo caawin ama garab ka helaya ciidamada howlgalka ku meel gaarka midowga Afrika ADMIS kuwaasoo iyaguna qayb ka ah sugidda amniga ee goobta doorashada ka dhaceysay iyo meelaha kale ay soo galayaan waxaan rabaa inaan martida kale wali soo dhaweeyo ka qayb galayso doorashada soo dhawow adoo magaca ku bilaabaya iyo ka qaybgalka doorashadan waxay kaaga dhigan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Yuusuf Faarax Dujaana runtii waxaan salaamayaa SNTV TV-ga qaranka fursadda noo siiyay maanta aragtideeda inaan ka dhiibanno hoolka doorashada runtii maanta farxadayda lama soo koobi karo waa maalin ku taariikhaysan in la doorto madaxweynihii dalka oo runtii muddo hal sano iyo bar ah laga dhul sugayay inay sidaan oo kale xalfadan oo kale la iskugu yimaado waxaan rajaynaynaa oo Soomaalidu hadda ay ka dhul sugaysaa madaxweyne tayo leh oo dalkiisa iyo dadkiisa u naxaya inuu meeshan ka soo baxo oo xildhibaanada sharafta leh gacantooda dahabka ay ku doortaan maanta maya doorashooyin ilaa iyo waa tii saddexaad oo aan ka qayb galo runtii tan waxay uga bedelan tahay isjiid badan baa dhacay oo iyo dib u dhac badan baa dhacday hadda laakiin waxaad moodaa inay soo gabagabowday inay maanta ku astaysan tahay maanta madaxweynihii qaranka in halkan lagu dooran doono qofkii ilaahay u qoro waxaan rajaynaynaa isbeddelka Soomaalidu ka dhul sugayso oo ah in la helo madaxweyne u naxaya dalka iyo dadka in maanta halkan laga doorto haddii alla idmo aad baa maasantahay ka qaybgalkaadan kaaga mahadcelinaa wali daawadayaal waxaad si toos ah ula socotaan tabinta tooska ah ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo goordhow qabsoomaysa iyadoo oo qabanqaabadii ugu dambeysay loogu jiro in doorashadu bilaabato marka guddoonku uu soo galo sidaasna loo galo haddii aan habraaca si kooban u dul istaago baaris badan ay jirto oo halkan la soo galayo oo la hubinayo dadka soo galaya kaararkooda iyo intuba ama xildhibaan hay'ad ama marjaraf kale hay'ado wareysada ayaan wali ku sii wada jirnaa waxaa la jooga mid kamid ah iyagu qaybgalayaasha doorashada soo dhow adoo magaca ku bilaabaya iyo sida u aragtay maanta doorashadan ka qaybsoomaysa teendada wallahi magacaygu waa Cabdalla Iikar Subeer wallahi teendadan waa teendada ugu horeysay oo aan ka qayb galo runtii xamaasadana aad iyo aad ay u kacsan tahay oo waa tirooyinka ugu badan oo musharax oo tartama hadda oo waa 36 musharaxiin oo madaxweyne tartamaya runtii mulkiyeeda rabbi ayaa bixiya kii mataqaanaa maanta oo nasiibkiisa noqda ayaa qaadan doona mulkiyadani oo la bixi doona laakiin anaga waxaan taageersanahay sideenaba new face iyo new system sidaan jecelnahay dadkii horena ma rabno ururdiidimeedna ma rabno waxaan doonaynaa ummadda Soomaaliya ay u baahan tahayna waa system cusub iyo wajh cusub qof dhalinyaro tahay oo maanta ka qayb galaya doorashadan dalkuna runtii doorashooyinka noocan oo kale waa ka soo dhacayeen dhalinyaradu waa xoog ugu badan dalka kaalintiina runtii marka la dhahayo aad uma muuqata siyaasadda iyo ka qaybgalka iyo xilalka noocan oo kale raadisaan maxay tahay caqabadaha in haysta dhalinyaro ahaan waa su'aal fiican wallahi runtii aadan u danaynayo su'aashan qof i weydiiyaba runtii dhalinyaradu way muuqdaan dhalinyaradu waxa way dhibaatada taala waxa weeyaan
qofku hadduu xil helo dhallinyaradii wuu dayacayaa dhallinyaradii hadday isku dayaan inay ninkaas xafiiskiisa aadaan xafiiskiisa waa ka xiran yahay xafiiska ma furayaan oo ninka wuxuu ku dayacmayaa marka meeluu abbaara ma leh oo meeluu afka aadiya ma leh ama ninka agaasima ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama mataqaana xildhibaan ha noqdo hadduu telefoonka ka qabanaynin ama mataqaana xafiiska ugu tagana ma jooga la leeyahay